tuulada Johor Somali waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle kooda ugu dhow maran booqday tuulada Johor Aylo ayaa waxaan la kulmay shacabka ku dhaqan tuuladaasi iyagoo iga warbixiyay xaaladooda nolol waxa ayna qurba joogta Soomaaliyeed iyo kuwa muslimiinta ah ka codsadeen inay la soo gaaraan gargaar bini'aadanimo sida goobo waxbarasho, goobo caafimaad iyo cilmiyeedyo waxa ayna ugu baaqeen sida ugu dhaqsiyaha badan qof walba waxa uu awoodo inuu u soo gargaaro waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay arrinkaasi ilmahayn oo wax noogu bartaan waa aqoon la'aan iftiin la'aan waay aan u baahanahay meel oo umulasa ah inaan helno waxaan u baahanahay inaan helno biyo yarada inay jirto meel kasta laga arkooyaa intaas aan u baahanahay gacan qabad xog la u baahanahay unka waa dad oo iska danyar bangnahay inaan oo kaalmeey aan u baahanahay ilaahay aan oo kaalmeynay intaas aan baahanahay dadka walaalahayn oo kor jiro inay noo soo ogaadaan aan u baahanahay waxaan u baahanahay goob caafimaad waxaan u baahanahay in ilmaha wax noola baro waxaan u baahanahay hubiga ma haysano hubigaayna bajaada lu dhaqoobay waxa lu dhaqoy hoomay waxa lu dhaqooyay maxay dhaayeen baawurta caadada ah dalaq maanta ma noo bixin in soo caabisiina u baahana ceelna u baahanahay waxaan u baahanahay ilmaha in iskool noola geeyo oo milasab goob caafimaad oo noola rooro ma laha dib umal oo gabar foolad meel la geeyo ma laha goob caafimaad ma qabno iskool ma qabno dugsi aan qabnaay waxaad dhigaay macalinka dhigaay waxaan siina ma haysano unuka dhamaanta dalaq ma noo bixin awaaran taagana hubigayna waa aragtaa in la sibirto waay waxa lu dhaqoyaa baawur dadweynaha qurbaha jir waxaan ka codsaynaa anagoo tuulada Johor Somali degan waxaan u baahanahay goob caafimaad goob waxbarasho ayaan u baahanahay sidoo kale taakuleena u baahan wadan waa awaarubi gargaar caalamiina u baahanahay macna lagu taakuleeyo sidii macna nafaqa la'aan wax aqbar la'aan iska jirtay dad ayaan doonay maxay waxbarasho lagu sheegaa aqoon la'aan la'aan waa kaasi waxa iska jirto abaare oo yar ito waaweyn waa kaasi maanta waxa dhacday in biyaran oo naqabato iska dhaafay webi iska dhaafay xeelal waa kaasi ceelkiiba ay biyo yareeyaan waa u baahanahay waxaas dhul qabasho tabar yara waa iska jirtay waxaas waxaan u baahanahay in la kaalmeeyo sida oo Soomaalida taageersan oo taag daran in la taageeruha in kullu taageero taasaan jecelnahay gudoomiyaha tuulada Johor Aylo Xaaji Xundi Sheekh Ahmed ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda ay ku nooshahay tuulada Johor Aylo ama Johor Somali sida loo yaqaanaba isagoo oo sheegay in aysan haysaninba goobo caafimaad iyo goobo waxbarasho iyadoo muddo hal qarni ku dhow ay dhisan tahay tuuladaasi Xaaji Maxamed Sheekh Ahmed oo ku magac dheer Xaaji Xundi Sheekh Ahmed ninkii mas'uulka ka ahay tuulada Johor Somali waa meesha hadda aan taaganahay dadweynaha muslimiinta oo qurba jooga waxaan ka codsanaynaa insha Allah haduu Ilaahay ka raali noqdo inay tuuladan ay wax ay u qabtaan sida macnaha goob caafimaad oo kaleente sida goob oo saas oo kaleente macnaha oo waxbarasho kaleente inay macnaha wax ay naga qabtaan iyo hatta sida macnaha ceel oo kaleente hatta macnaha waa u baahanahay biixuma ayaa iska jiraan saas oo kale ceelo oo saas oo kaleente macnaha iska dayactir oo u baahan hatta macnaha waa jiraan ay kan inay wax ay naga qabtaan waa ka rajeynina haduu Ilaahay ka raali noqdo iyo kana Ilaahay ha soo sakhiro insha Allah haduu Ilaahay ka raali noqdo Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Qalfa City Cable magaalada Jowhar